بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan shacabka deegaanka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan bixiyo warbixin kooban oo la xiriirta halka ay marayso dhismaha maamulka iyo talooyin iyo awaamiir la xiriirta nabadgelyada deegaanka waxaan ku horeynaa dhanka maamulka sida aad la socotaan waxa la dhisay golihii kabineetka waxa kaloo la magacaabay gudoomiyaashii gobolada waxa hadda socota dhismihii degmooyinka oo aan rajeynayno in la soo gabagabeeyo 4 ilaa 5 cisho gudahood waxaan rajeynaynaa marka la dhameystiro dhismayaasha maamulka in ay bilaaban doonaan si buuxda adeegyadii bulshada oo dhinac walba ah una ku xigi doono dhismihii xisbiga dhinaca nabadgelyada xaaladda deegaanka aad ayay u fiican tahay waxa muddo kooban gudahood maaragtay aan oran karnaa waxa soo noqotay kala dambeyntii iyo sharcigii iyadoo oo wax la tilmaamo oo qalaasa oo hadda u balaaran ka jira deegaanka waxaan habayaraad ahaatee la dardaarmaynaa shacabku inuu ilaashado ammaankiisa inuu ciidamada caawiyo in hay'adaha nabadgelyada lala shaqeeyo in la iska ilaaliyo waxyaalaha keeni kara qalalaase oo ay ka tahay qabyaalad in la isku abaabulo oo maaragtay la bilaabo dhaqdhaqaaqyo qabyaalad sal ku haya oo aan habboonayn gaar ahaan waxa aan xoog rabaa inaan ka hadlo arrinta la xiriirta haraagii kooxdii heego oo isku dayaysa iyadoo oo la shaqeynaysa hay'ado aan Soomaali ahayn oo aan dan badan ugu jirin deganaanshaha gobolka inay rabaan inay abuuraan qalalaaso fara badan oo qaarkeed weji qabiil loo sameeyo hay'adaha nabadgelyada waxa si buuxda awood lagu siinayaa inay isticmaalaan awoodooda oo ay iyagoo raacaya sifo sharciya talaabo ka qaadaan cid walba oo heego ku leh oo ka shaqeynaysa inay qalalaaso ka abuurto deegaanka talaabadaas waxaan rabnaa in si dhaqso ah loo qaado waxaan waalidiinta iyo bulshooyinka u sheegaynaa inay ka waaniyaan caruurtooda inayna dhaxgelin arrimahaas ay wado heego iyo dadkii deegaankan qalalaasiisa mas'uulka ka ahaa oo badankooda aan Soomaali ahayn hadda ka hor arrintaas si adag looga hortegayo in u sheegnaa rabnaa waalidiintuna ay u sheegaan caruurtooda si ay dhibaato uga soo gaarin waxaan soo dhaweynaynaa in ururadii wada hadalka la galay dawladdu ay ku soo dhawaadaan deegaankoodii si xor ah u yimaadaan afkaarahoodii soo bandhigaan dadka la xiriiraan hase ahaatee waxaad moodaa inay abuuran tahay xaalad kale oo dad aan ururadii wada hadalka nabadgelyada ah noo socday aan ahayn inay rabaan inay ku dhex dhuuntaan ururadaas oo ay maaragtay abuuraan xaalad deegaanku qalalaas uu ku galayo waxa taas cadeyn waa shalay waxa calama qaatay oo iska dhigay dadkii soo halgamay jabadaha ahaa dad la yaqaan oo heega ah hadii magacyadooda loo baahdana waan u soo bandhigaynaa cid walba u baahata heegadii la yaqaanay ee dadka dilaysay ee leynaysay ee kufsanaysay ee magaalada gubaysay baa maanta qaarkeed ay rabaan inay calamo intay qaataan ku dhex dhuuntaan dadkii gumaysidiidka ahaa ee wada hadalku noo socday arrintaasi arrin aan u dulqaadan karna ma aha waxaan ka codsanaynaa jabhadda ONLF in ay si taxadar leh nooga caawiso inaan lagu soo dhex dhuumanin oo waxyaalaha halis ku ah nabadgelyada deegaanka ayna samaynin xubno aan iyada ahayn laakiin astaamihii ururka dhabarka u qaadanaya oo dhabarka sudhay arrintaas oo runtii qalalaaso aan loo baahnayn horseedi karta waxaan sheegaynaa in dhammaan gobolada si xor ah ay uga dhaqdhaqaaqi karaan cid walba laakiin taas inay imanayso marka qawaaniinta iyo shuruucda loo hoggaansamo oo ay kow ka tahay in haddii la qabanayo mudaharaadyo ama isu imaatin balaaran la wargeliyo hay'adaha amniga ay khusayso hay'adaha amniguna ay siiyaan fasax la isugu iman karo
xakamayn loogama jeedo arrinta waxa looga jeedaa ilaalin iyo in la badbaadiyo nafta bini aadamka iyadoo ayna habboonayn in hal qof uu naga dhinto dhinaca kale waxaan kala dardaarmaynaa cid kastoo iyaduna qaab qabiil isu abaabusha inayna sharciga gacanteeda ku fulin haddii cabashooyin la xidhiidha heega ay jiraan in loo gudbiyo hay'adaha ammaanka oo loo sheego in la caawiyo ciidamada iyo bilayska inay ogaadaan cidda qalaasaha wada laakiin maadaama cid qalaasa wada ay jirto awgeed cid kale inta isaabusho qalaasa ma abuur karto arintaas cidda ku dhaqadan waxaan u sheegaynaa in talaabo laga qaadi doono guud ahaan ciidamada ammaanka iyo hay'adaha nabadgelyada dhamaantood waxaan siinaynaa amar adag oo ah in qacan adag ay ku qabtaan cid walba isku dayaysa in ay nabadgelyada deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga khatar geliso taana ay dhaqan gelinteeda warbixin rasmi ah ka keenaan waad mahadsantihiin